bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan daawada halkan waa telefishinka danan kusoo dhawaada warkii oo kooban booliiska Soomaaliya ayaa maanta waxay gacanta ku soo dhigeen maanduuriyaal dalka dibadiisa laga keenay hogaamiyaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawn waxa uu shir gudoomiyay shirka wada tashiga arrimaha waxbarashada oo maanta ka furmay magaalada Jowhar intaas waxay hayeen qodobadii ugu door korona ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan caawan waxa idin akhrin doona anigoo Cabdulqaadir Sheekh Cabdullaahi Maxamed Ducaysane booliiska Soomaaliya ayaa maanta waxay gacanta ku soo dhigeen maanduuriyaal dalka dibadiisa laga keenay afayeenka booliiska Soomaaliya gaashaanle sare Cabdifataax oo shir jiraad ku qabtay degmada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr oo xasaasi ah waxa uu tilmaamay in booliiska Soomaaliya ay gacanta ku soo dhigeen maanduuriyaal dalka dibadiisa laga keenay isla markaana ay kaga hortageen in maanduuriyaashaasi la soo geliyo gudaha magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya Cabdifataax afayeenka booliiska ayaa fariin u diray cid kasta oo ka ganacsata waxyaabaha la xiriira maanduuriyaasha in sharciga lala tigsan doono isla markaana waxa uu tilmaamay inay ka waantoobaan in magaalada iyo guud ahaanba dalka Soomaaliya la soo geliyo waxyaabaha maanduuriyaasha madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe ayaa maanta waxa uu shir gudoomiyay shirka arrimaha waxbarashada ee maanta ka furmay magaalada Jowhar oo xarun ku meel gaar u ah maamulka Hirshabelle madaxweyne Cali Guudlaawe ayaa kaga mahadceliyay dowladda dhexe si gaar ah waxa uu tilmaamay in wasaaradda waxbarashada ay qaadatay kaalinteeda kaga aadan in la tayeeyo waxbarashada Soomaaliya iyo doorkeeda kaga aadan in guud ahaan maamul goboleedyada dalka ay si wadajir ah kaga faa'iideystaan tayada waxbarasho waxa uu tilmaamay in dowladda dhexe gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ay ku maasan tahay in xilliga la taagan yahay shirka wada tashiga arrimaha waxbarashada markii ugu horeysay laga daafuro magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe warka aad kala socotay telefishinka danan wanaagta Salmaan waa uu mahadsan yahay aniguna ducaan ahay nabadgelyo adeegga dhamaysbaas waa sida durduraan ku hay taasoo ka dhigan inuu yahay isku xiraha joogtada ee aan hakadka lahayn xirmada toddobaadlaha adeegga dhamaysbaas waxaa kugu dhan internet xawaarihiisa la hubo iyo ku hadalana xadidnayn oo ay ku dheertahay IPTV dhamaysbaas waa midaan kala gool lahayn oo kuu fududaynaya inaad la xiriirto adduunka oo dhan ku shubo kaliya 25 senti kuna isticmaal internet iyo ku hadal muddo 7 waxaana ku dheernashada IPTV oo ah isku xiraha madadaalada casriga uga shubay dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal afargees dhamays xawaare sare isku halayn joogta iyo adeeg ka tarjumaya baahiyaha casriga